السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دمانتين بقى بعدين سلام يا أصحاب تقاليقة waxaan jeclahay caawa inaan kala hadlo mowduuc yar muhiim ah mowduucaas waxaan la hadlayaa asxaabta reer Soomaaliland siba mowduucaasi waxa weeyaan mowduuc in badan ka fikray in badan aan isku dayay aan ku qanciyo mowduucaasi waxa weeyaan dhalinyaro waxa jirta dalkeenii joogta wax baratay jaamacad soo baxday soo wada qalin jabiyay yani lacag badan kaga baxday kharash badan kaga baxay waqti badan kaga baxay inay muxuu jaamacadaas iyo waxbarashada yani ay ka mid dhaliyaan hase yeeshee markii ay waxbarashadii dhameeyeen ee ay jaamacadii ka qalin jabiyeen shahaado inay qaateen meel ay u dhaqaan garan la yani aad moodo in meel ay u dhaqaan garan la yihiin hase yeeshee runtii haddii cid caqli iyo cilmi isku darsatay ay joogto ay awoodi lahaayeen dadkaasi inay wuxuun qaban lahaayeen oo dalkana wax faa'iido lahaayeen iyaguna faa'iideysan lahaayeen dadkaasi waxa ay u baahan yihiin caqli iyo maskax iyo siyaasi dadka wadanka haysta wadanka maamulaya ay ugu baahan yihiin talo iyo tusaale iyo hagitaan iyo inay muxuu jihayaan dadkaas wada dhalinyaro ah wada qalbi wanaagsan wada dalkooda jecel wada horumarka jecel wada iyagu sugaya inay helaan bal mustaqbal kan dhaama inay helaan hase yeeshee cid hagtaa ma jirto dadkaasi waa muwaadiniin ku dabran duruufuhu dabreen duruufahaasna waxa aabba iyo hooyo u ah dadka wadanka haysta ee aan ahayn dad caqli badan ku shaqeynaya aan ahayn dadkaas dhalinyarada ah waxaan in badan ku fikiray in loo sameeyo mashaariic yani tabaruca voluntary dunidu ma socoto yani dal faqiiri hore uma socdo haddii aanay dadkiisu aanay waqti iyo muxuu ahaa dadaal aanay ku bixinin dadkeena dhalinyarada ah muxuu ahaa wax soo bartay dadkaasi waxay u baahan yihiin cid caqli ku hagta waxay u baahan yihiin cid waxa yani suuragal ah u tilmaama dadkeenaasi waxaa jira 150 wax oo ay qaban kar lahaayeen haddii heli lahaayeen political direction-kii magaranaysa heli lahaayeen oo cid yani hagta oo toosisa oo yani tilmaanta ay heli lahaayeen dadka dhalinyarada ah waa dad يعني waxba qaban kar lahaa ummad kasta dhalinyarada ay ugaxeeda ah ummad kasta dhalinyarada ayaa hagata dadkaas dhalinyarada ah waxay u baahan yihiin in loo furo mashaariic ay ummadda nooga faa'iideeyaan iyana ka faa'iideystaan waxbarashadii ay soo barteen ay u qabtaan practically ay u qabtaan dhalinyaradaasi waxay qaban karayaan kii engineer ah kooxdii engineer ah waxay ahayd in loo tilmaamo wax ay intiisa kaashadaan ummadana u faa'iido ah oo ay cilmigiisi kana soo ikhtiraacaan ay soo dejiyaan loo diro kii electrical engineer loo diro system yani faa'iido keena waxa sheekada ay yani wajida ummaddu dhalinyaradu siiba ummaddu dhamiba haddii aanay helin cid hagta haddaanay helin cid toosisa haddaanay helin cid direction u samaysa meel la uma socoto ummadaasi socon mayso kori mayso hore u socon mayso ummadda dhalinyaradeedu meel ma socdaan oo waayeelkeedu meel ma socdaan oo wadanku horumar ma yeelanayo wax allaala iyo wax socon ma jiraan Somaliland ma haysto dhaqaale ay dadka oo dhan ku shaqaalayso mashaariic weyn ay ku dejiso ay muxuu ahaa Allahu subhanahu Muhammad ay yani dhalinyaradu dadku shaqo wada helaan chance kaliya ta furani waxa weeyaan in dhalinyaradaas iyo xataa waxa loo ciideeyay ayaan shaqo kareeba kii xoog dadka kii xoog leh ee bil camal meeska fadhiya intuu dadku waxa leeyahay dadku way qaylaan dadka qaadka waxa u geeyay inay qaylaan waxa u geeyay wuxuu qabto qof ma laha ilaahay baan ku dhaariyay qof muxuu ahaa seexanayo soo kacaya soo mu baahna wuxuu yani isku madariso ma baahna waxaan yani ku taqaanaa haddii kii aqoon leh aqoontiisa laga shaqaysiiyo oo kii xoog hayo xooggiisa laga shaqaysiiyo oo kii caqli hayo caqligiisa laga shaqaysiiyo ummaddu hore ay socon lahayd ummaddu wuxuun bay la iman lahayd sida hadda xaal yahay waxba ku socon maayaan sheekada Soomaaliya kaliya ma khusayso
sidoo kale waxaan la hadlayaa dadka Soomaalida oo la hadlayo iyaga sidoo kale yani Somaliland maadaama aan ahay muwaadin reer Somaliland baan yani hadalka marka hore gaar uga hadlayay laakiin waa arrin yani inay wada saameysa dhalinyarada Soomaaliyeed kale yani cidda Soomaaliya maamusha ama gobolada kuwa maamulaha noqon ama dowladda dhexe Soomaaliya noqoto iyaguna waxay baahan yihiin talo noocaas kala dadka dhalinyaradooda haddii aan la jahaynin meel la uma soconayaan ummadani waa ummad faqiira oo ummad u baahan inay soo korto ummadani waxay dadkeeda u baahan tahay siyaad barre inkastoo inaan jeclay aanu hayno shakhsi aad u xun ahaa haddana waxyaabaha kaliya ta ee yani aan ka xusi karo wax ka mid ah in uu dhalinyarada inkastoo iyagu wixii ay xoog ahayd oo khasab ahayd haddana dhalinyarada wuxuu ku khasbi jiray inay yani shaqeeyaan oo dadku yani waxay lahaayeen iskaashtooyin dadku waxay lahaayeen ardaydu marka ka baxaan iskuulada waxaa loo diri jiray national service adeeg qaran wuxuu doonaa ahaado in doonaa ahaado ma laba sano ama kule waqti bacan kama sugaanin marka yani sheekadu waxaan ka wada soo ururaysaa dadku waxay u baahan yihiin cid hagta yaa akhi ma loo baahna socon mayso dad iska fadhiya oo soo qaylaya oo iska soo fadhiya oo doonaya horumar iman maayo haddaanay ummaddu iyadoo horumar samaysanin taas ayay tahay farintaydu taas ayaan dadka kula talinayaa taas ayaan kula talinayaa nimanka siyaasiyiinta ah taas ayaan kula talinayaa kuwa soo socday siyaasiyiinta doonaya inay hadda xilka qabsadaan yacni haddaydaan ummaddan idinku jahaynin ummaddani jaha ma helayso intaas ayaan halkay kusoo koobayaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh